بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده معهد اسبين waa barteen casharo muhiim u ah horumarinta bini'aadanka waxaan soo wadnay casharo taxana ah oo la xiriiray qaabka qataraha loo maamulo ama waxa lagu yiraahdo luqadaha qalaad risk management waxa luqadaha qalaad lagu yiraahdo marka insha Allah hadaa la yiraahdo maanta waxaan qaadan doonaa qayb yar oo waxa jirtay aqoonso qataraha aan ciwaan uga dhignay oo hore u soo qaadanay jirta qaybtaas marka ka bacdi marka qataraha la aqoonsado qatarahaas la qiimeeyaa qatarihi ku ugu macquulsan iyo si loo xalin karo la qaataa ka bacdi go'aanka saas looga gaaraa marka waxaan qaadanaynaa maanta qayb yar oo ah qiime yani qataraha aqoonso see loo aqoonsana qataraha yani qataraha aqoonso waa soo fahnay oo qataraha in la aqoonsado muhiim ah laakiin see loo aqoonsanaa process yar oo loo aqoonsan karo hadaa company weyn tahay iyo hadaa company yar tahay labadaba la fahmi karo ayaan baranaynaa maanta insha Allah tubta loo maro si loo aqoonsado qataraha ayaan maraynaa qataraha horta yani shirkadu aqoonsanayso sanad kasto marka la gaaro qataro ayaa la aqoonsadaa yani sanad kasto marka la gaaro qatarihii horena say u dhaceen isee loo maamulay laga hadlaa waxa kale oo la aqoonsadaa sanadkan maxaa qatara ah oo nagu soo socda ayadana waa la raadiyaa marka qataraha marka la aqoonsanayo horta marka koowaad farsamooyin badan loo maraa dad qubaraa in la wareysto wixii hore soo dhacay in la arko waxyaalaha badan brainstorming fara badan shaqaalaha in loo diro maxaa shuruuco wadanka soo kordhay la fiirsho waxyaalo badan laakiin si kooban aan rabaa inaan laba horta qaybood inaan kugu qaybiyo qataraha la aqoonsanayo horta waa laba nooc horta marka koowaad ma labadaas kama badanayaan mid waxa waaye qatara hore u dhacay يعني قطره هره u dhacay midna waxa waaye qatara aan hore u dhicin wali yani labaas qataroodo ah yani qatara hore u dhacay ayagu iska cad yihiin sanadka hore la soo macaamilay ama yani si qaldana loo maamulay ama si fiican loo maamulaas mid noqonaysa hadii si qaldan loo soo maamulay sanadkan waxa leeyahay hal saxo wixii hadda ka dambeeyo meeshaas qaabkaas isaas aan uga feejignaano sanadka hore saas haduu nagu dhacay sanadkan ayuu nagu soo laaban ayaa la yiraahdaa yani hadii marka qatarahaas ay noqdaan xogta marka qataraha hore u dhacay meeshan qataraha hore u dhacay yani xogtooda macnaha waxa laga helaa dhacdooyin hore u dhacay sida shil baabuur oo kale yani wax hore u dhacay waaye oo shirkadda ama company-ga ha yaraado ama ha weynaado waa يعني dhacdooyin hore u dhacay sida shil baabuur kormeer ka sanadlaha oo kale tusaale ahaan ayaa lagu soo arkay khatar jiro yani xarumaha ama qaybaha shirkadu ay ka kooban tahay ayaa lagu soo arkay ama abaara dhacay musiibooyin dhacay sanadkii la soo dhaafay see looga feejignaa see loo tsunami dhacay waa la ogyahay marka cabashada macaamiisha xageed ka imaato macaamiisha waxay noqon kartaa mid oo private ah iyo mid oo public ah يعني wadooyinka يعني macaamiishu inay ka cabtaan wadooyinka sirkiska badan nooga soo jira waa baabuurta ku gadoontaa waxa cabashada macaamiisha inay ka sameeyaan isla markaasna dawladdu ama cid ku shaqada markaas ay bahalkii ahaa ay bahalka ka fakarto ayaa la rabaa marka mid labaad waxa waaye warbixino sanadle hore la diyaariyay mid kale waxa xog ka timid shaqaalaha waliba shaqaalaha dadka oo waxgalka ah xog ka timid oo ay sheegeen waa laga qaataa warbixinadas saxaafadda ama baraha bulshada ayadana waa laga qaataa meelaha warbixinta laga qaato qataraha hore u dhacay iyo saameynta hore yeesheen meelaha saxaafadda iyo baraha bulshada kamid ah waxa kale oo qaadanaynaa marka qataraha hore u dhacay marka ayagana maxay yihiin qataraha hore u dhacay ayagana maxay yihiin qataraan hore u dhicin waxa laga qaataa meelaha qataraan hore u dhicin waxa waaye waa waxyaalo sanadkii hore aan dhicin laakiin imaan raba ama imaan kara oo in qorshaha lagu sii darsado iyo sidii loola macaamili lahaa laga fakaro waliba marka tahay shirkad ganacsi aad u muhiim u tahay kan waxa kamid ah maskax shil
xagga shaqaalaha inay maskaxshiil badan sameeyaan kulamada isku yimaado waxyaalaha ay ka sheegaan arrintan qatar waaye meeshan yani albaabka laga sameeyo qatar waaye ciidanka meeshan joogo halkay ahaay aan la macaamilo qatar waaye yani shaqaalaha meesha joogo waxyaalahaas riski ku ah hebelow qaabkaas waaye maskaxshiil shaqaalaha la yiraahdaa inta badanna waxa waaye waa lagu faa'iidaa oo yani qatartaas imaan karto waa laga sii diyaar garoobi karaa haddii la helo waxaa kaloo jiro sharciyo ka imaan kara xagga dowladda ama cid kale oo awood leh oo isbedela aan ka wada meeshan oo isbedela laga wada macnaha waxa waaye sharciyaha qatar riski kugu yihiin sharciyada dowladda haddii tusaale ahaan dowladdii hore ma dowlad kale ay imaato waxaa laga yaabaa waxyaalo cusub inay soo kordhiso oo adiga riski ku noqon jiritaankaaga dhanba riski ku noqon kara marka sidii loola macaamili lahaa waa in loola fakaraa waa in laga fakaraa waxaa kaloo jira wareysi dad khuburo ah inaad wareysato oo niyo riski maxaa imaan karo bal ka waran shirkadaada qaabkii u shaqeysay uu ka wareysanaya kabacdi waxaa laga yaabaa inuu riski analysis oo ku siiyo oo qatar imaan karta waxaa kaloo jira saxmin ama survey oo badan in la sameeyo in marar badan waqti badan la gelsho lacag badan lagu baxsho ayadana waxa waaye waa la sameeyaa marka aqoonso qataraha dhici kara waa labo sanadka soo socda insha Allah haddii la yiraahdo qataro hore u dhacay oo noo diiwaan gashan iyo si loola macaamilay oo midaan ah xogaha information laga heli karno waa kana qatara hore aan u dhicin oo ayadana in la saadaaliyo ay muhiim tahay meelaha laga heli karo warbixintoodan waxaa kamid ah meelahana kamid ah ayaa kamid ah maskaxshiil fara badan sharciyo in la bedeli karo waxyaalahaas wareysi adi mar walba waxaa laga rabaa waxaa lahay shar u tooka qeyr wax kama dhibe marka kan saas xoogaa la xiriira marka intaas ku soo gabagabeena macadka Spain waxa u baahataan information oo la soo xiriir kartaan waa mahadsantiin 100% wixii buugaana iyo wixii kale inta insha Allah waana la soo xiriir kartiin waa mahadsantiin